بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وعندا وضيال كسو دوادا وررك عالم قيدا عدا ودن كوا تلادو تاريخ دونا اي كو بيغانتاي كو يلباتنك بيش اللبيو تسمناد لباكون كو يلبات قضبادا وررك إذا عدا ودن كان كو فلانقين دونو هدي ألا لغيهلو وحا كميدا كينيا oo ciidamadii ugu badnaa soo dhoobtay xadka Soomaaliya ay la wadaagto ciidamada BSF oo guulo ka gaaray dagaal ay la galeen ciidamada Siciidana iyo gawaari dagaal oo ay la wareegeen wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Boosaaso ayaan idin soo gudbin doonaa qodobada kale ee warkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dawladda UK oo u hanjabtay mid kamid ah maamul goboleedyada dalka ka jira Sacuudiga oo weeraray garoonka diyaaradaha magaalada Samca حكومة أبي أحمد وجواب كبحث قوانك لما فلان كاي قاتين TPLF إيو إسكهوريمات قصارة داريي أو كرنعي بريغة دالك كونغو قدبا داسي قدبا كري أيان وركينا كدا وندونتان صاحب بيال وديار قروبة داوشد وركاسو دميستران هادي اي تايمركي كوغو ريسو صوب وقتو جنال كيدا عد ودنكا فضلا سبسكرايب صار او فروغان بلالكا سي كوغو سو دعان xogaha muhiimka wadaniyada ka hadlaya halkan aan idin soo galino like ka tagin qaybta komentiyada aragtidiina ayaad ku cabiri kartaan mahadsanadiin ayna ku bilowno wararka laga helay deegaanada ku yaala xadka Soomaaliya ayaa sheegayaan saacadii ugu dambeeyay ee dawladda Kenya soo dhoobtay ciidamo dheeraad ah oo sugaya amniga inta lagu jiro maalmaha dhamaadka sanadka 2021 booliska Kenya ayaa shaaca ka qaaday in la geliyo heegan buuxa ciidamadooda si ay uga hortagaan suurtagalnimada weeraro ay fuliyaan xogaga al-shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya Kenya ayaa sidoo kale u yeertay askarta fasaxa ku maqan si ay dhankooda qayb uga noqdaan dhaqdhaqaaqyada cusub ee haatan ka socda xadka labada dal ciidamada ayaa bilaabay howlgal cusub oo loogu magac daray sugidda nabadda maalmaha dhamaadka sanadka sida uu shaaca ka qaaday taliyaha booliska dalka Kenya oo ugu baaqay shacabka iyo ciidamada inay muujiyaan feejignaan dheeri ah sidoo kale jidadka isku xira deegaanada ku yaala xadka ayaa laga bilaabay baaritaano dheeraad ah oo lagu hubinayo gaadiidka si looga hortago weeraro dabagal ah oo mar kale xarakada al-shabaab ay ku qaadaan dadka isaga kala gudba ismaamulada ka jira halkaasi arintan ayaa uga sii daraysa dhaqdhaqaaqyadii horey uga jiray xadka ay u dhaxeeyay al-shabaab iyo ciidamada Kenya oo marar kala duwan isku farsaaray gobolka waqooyi bari dalka Kenya dadka deegaanka ayaa dhankooda waxa soo wajahday cabsi xoogan oo ka dhalatay xaaladaha amniga soo kordhay iyo ciidamada haatan la geeyo xadka si kastaba mudooyinkii ugu dambeeyay al-shabaab ayaa sare u qaadaysa weerarada ay ka fuliso gudaha Kenya kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhinaca kale ciidamada BSF ayaa guulo ka gaaray dagaalka ay kula jiraan ciidamada Siciidani iyadoo gawaarin ay kala wareegeen wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ayaa sheegayeen halkaas uu dagaal xoogan uu ka socdo ka u dhaxeeya ciidamada cadwa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo kuwa BSF weerarka waxaa markii hore soo qaaday ciidamada madaxtooyada Puntland kuwa oo dhaqdhaqaaqyo ciidan saacadii la soo dhaafay ka wada magaalada iyaga ujeedkoodu ahaa in la soo afjaro ciidamada BSF sawirro iyo muuqaalo la soo duubay oo warbaahinta heshay ayaa lagu muujiyay in gawaari dagaal iyo qoryo inay ka carreen ciidamada madaxweynaha Puntland taabacsan waxaana la wareegay kuwa BSF dhanka kale dagaalka ayaa la soo sheegaya inuu u muuqdo mid u sii siqaya dhanka garoonka diyaaradaha Boosaaso halka oo la sheegay inay noqon doonto meesha ugu adag ee dagaalka ka dhici doono Siciidani ayaa ku sugan magaalada Baydhabo waxaana warar aan helnay sheegayaan in lagu wargeliyo in ciidamadiisa ay ku jabeen dagaalka Boosaaso dhinaca kale dawladda UK ayaa u hanjabtay mid kamid ah maamul goboleedyada dalka dawladda Ingiriiska ayaa joojin doonta taageerada ay siiso ciidamada maamulka Koonfur Galbeed haddii ay ku lug yeeshaan arrimo siyaasadeed sida ay shaaca ka dhigtay Danjile Kate Foster oo marti ku ahayd madasha aragti wadaaga ayaa Twitter-ka waxa ay ku soo qortay in doorashooyinka ay noqdaan kuwa daahfuran oo waqtigooda ugu qabsooma si daacad ah sida laga soo xigtay Foster xukuumadda London waxaa ka go'an inay sii wado taageerada ay siiso Soomaaliya si dib loogu dhiso ciidamada qaranka waxaan ka dalbanayaa hogaamiyaasha Soomaalida inay ka fikiraan in ka baxsan danahooda gaarka ayay ku tiri nuqul kamid ah hadal jeedinta ay samaysay
koonfur galbeed ayaa ka mid ah maamulada ilaa haatan bilaabay xulista xubnaha aqalka hoose. musharaxiinta madaxtinimada waxa ay dureen qaabka ay ku bilaabatay codeynta iyaga oo dalbaday sixeed. waxaa naga go'an inaan ka caawino Soomaaliya inay dib u dhisto ciidamadeeda, balse haddii ciidanka aan ku tababarno Baydhabo ay ku lug yeeshaan siyaasadda maxalliga ah, waxaan joojin doonaa tababarka iyo taageerada waana ka soo bixi doonaa, ayay hadalkeeda sii raacisay. hanjabaadda boqortooyada Ingiriiska ayaa ku soo beegmaysa xilli qaar ka mid ah madaxda Soomaalida ay Baydhabo joogaan ka qaybgalka xafladda dabaaldegga sanad guurida saddexaad ee doorashada Cabdicasiis Laftagreen oo halka ay kaga qaybgalayaan. idaacadda waddanka ayuu daawadayaal warkan idinkaga imaanaya. xukuumadda Abiy Ahmed ayaa jawaab ka bixisay go'aankii lama filaanka ay qaateen kooxda TPLF. xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ku gacan saartay go'aanka ay ku dhawaaqeen mucaaradka Tigreega ee kaga baxayaan gobolada deriska la ah ee Afar iyo Amhara. waxaana hadda dhamaystirnay ka bixitaanka ciidamadeena ee gobolada Amhara iyo Afar. waxaa sida Twitterka ku qoray afhayeenka TPLF. talaabadan lama filaanka ah ayaa dhabaha u xaari karta xabad joojin laga gaaro kadib 13 bilood oo dagaal qaraar halka uu ka dhacay. waxaan ku kalsoonahay in ciidankeena geesiyaasha ah ay ka baxayaan halkaasi, ayuu yiri afhayeenka. hase yeeshee afhayeenka Abiy Ahmed Bilene Siyom ayaa ku gacan saartay ku dhawaaqista mucaaradka oo ay ku qeexday mid lagu qarinayo guuldarooyin militari. TPLF waxaa ku dhacay khasaarooyin waaweyn toddobaadyadii dhowaa, sidaa darteed waxay sheegayaan dib u gurasho xeeladeed si ay u qariyaan guuldarooyinka, ayuu warbaahinta u sheegtay afhayeenka xukuumadda Abiy Ahmed. weli waxaa jira qaybo ka mid ah gobolka Amhara oo ay joogaan iyo sidoo kale furimo kale oo ay isku dayaan inay dagaal ku furtaan. dhinaca kale dowladda Mareykanka ayaa ka falcelisay go'aanka Tigreega, wuxuuna afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Ned Price uu sheegay in haddii la xaqiijiyo dib u gurashada TPLF ay tahay arrin ay soo dhaweynayaan. waa arrin aan ku baaqayno, waxaan rajaynaynaa inay albaabka u furi doonto diblomaasiyad ballaaran, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka. warqad uu u diray qaramada midoobay ayuu hogaamiyaha TPLF ku baaqay in hawada gobolka Tigray laga dhigo aaga dulimaadada ka caagan cunaqabateen hub oo lagu soo rogo Ethiopia iyo xulafadeeda Eritrea, iyo in la dejiyo hab ay qaramada midoobay ku xaqiijin karto in dhammaan ciidamada bannaanka ka yimid ay ka baxaan Tigray. qaramada midoobay ayaa hore dowladda ugu eedeysay inay xayiraad ku soo rogtay gobolka, eedeyntaas oo dowladda ay beenisay. بسم الله الرحمن الرحيم. كلنتي وعنا ونكسن إذا لهانتين بدأ وضيال كسر هذا برنامج كني دب كهذا وعين قضب كني كويجي دونه وركي وجودن بيه أدن كاسية دلك إثيوبيا من لترك دلك إثيوبيا يا ورسمية كسر صار حبة شوشين تا أي كوحدة تيبي لفتو مع النماذج شلا يحيد كل واقعي وحبر برصعد حبة شوشين تاسي دو قيمة دن كعركة أو عيد مضى عركة دلك إثيوبيا أي قال بحين قبا يكسجينهين كوحدة تيبي لف ugu dambeyntiina waxaynu eegi doonaa daawadayaal afhayeenka TPLF oo ka hadlay sababaha ku khasbay inay ka soo baxaan furimaha hore ee dagaalka ee ay dawladda dhexe ay kula jireen. qodobada iyo kuwa kale oo muhiim ah waxa isha soo mariyay wariye Ilka Case oo dhinaca iga fadhiya aan su'aalo ka weydiin doono. Ilka Case ugu horeyn soo dhawow marka xigta militariga dalka Ethiopia oo rasmi ka soo saaray xabad joojinta nafla caariga ee ay TPLF ku dhawaaqday. Wuxuu ka yiri وما سنتي جريدو دواشنا سلامينا dad badan baa waxay dhaheen waa propaganda waxyaabaha la sheegay ah TPLF in magaalooyin laga qabsaday ama laga xiriyay ama laga eri ama ay ka baxeen laakiin dadkaas waxay iska indhatirayeen in TPLF laftirkeeda iyadoo ay lahaydba magaalo Hiblaaye dhulkaas waan ka baxnay oo xeelad dagaal iyo istaraatiijiyad baan uga baxnay iyo qorshe noo degsan kuwaas waa taageerayaal xaj jiray Soomaaliya dadka TPLF ama taageera ama ay isku fikirka yihiin Abiy iyo maartay xukuumaddiisa iyo maartay wixii la jira ka soo horjeeda oo bay ogyihiin laakiin Soomaaliya waxa dhahdaa isha ku macallin ah wixii mudooyinka u dambeeyay ama toddobaadii la soo dhaafay dhacay dagaal ah oo dawladdu iyadoo ay
hormuud u ahayd oo waliba guulo la taaban kara ay ka gaadhay oo hadda muuqdo oo TPLF lafteedu ay qiranayso in cadaadis iyo culays soo fuulay iyo dhibaato ay la kulmeen darteed ay uga baxeenba deegaanadan waxa weeye waa wax cad weey oo aan la inkiri karin weeye mar walbana markii TPLF ay gacanta sare lahayd waa la ogaa warbaahinta caalamiga ee tabinaysay dad goobjoogayaal ah ayaa la wareysanayay oo si toos ah u sheegay waxa dhacay iyo cidda gacanta sare leh iyo cidda waxa weeye dhulka qabsanaysa iyo cidda cararaysa haddana sidii la mid ah warbaahinta caalamiga iyo goobjoogayaal ayaa iyaguna tabinaya oo dawladdiina iyadana waa laga soo xiganaya intii TPLF ay cararayso magaalooyin laga saaray ugu dambeyntiina danta ay ku qasabtay inay dhahaan waxa weeye dagaalka la joojiyo waxba joojinta hal dhinacna ay ku baaqaan magaalooyinkii iyo dhulkii axmaarada iyo canfarta markii ay ku dagaalamayeen waxay ugu dagaalamayeen dad badan waxay leeyihiin iyaga lafsikooda waxa weeye mooji waxay ugu dagaalamayeen deegaan aysan lahayn koodii waaba joogay deegaan aysan lahayn waxay ugu dagaalamayeen ay waday u sii marayeen aadiyaan waxaan ognahay in warqad furan uu hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael uu u diray qaramada midoobay taas oo uu ku baaqay ama uga dalbaday in dawladda Itoobiya lagu caadiyo in wada hadal la isugu yimaado miiska korkiisa isla markaana qaab isfaham lagu xaliyo colaadan muddada socotay sanadka iyo googo'a sidoo kale waqtigiisa waxa ku jirtay fariin degdeg ah oo u diray ciidamada TPLF ee ka dagaalamaya furimaha dagaalka gaar ahaan deegaanada axmaarada iyo canfarta in si degdeg ah ay soo faarijiyaan oo ay uga soo baxaan deegaanadaasi ayna yimaadaan xuduudka ay deegaanadaasi la wadaagaan deegaanka Tigreega oo dhanka Tigreega ay yimaadaan warqadaas kuma jirin deegaanada ay axmaarada iyo Tigreega markii horeba ay isku haysteen arinta markay soo baxday waxa iyadana jirtay dadaal ay dawladdu waday shalay islaaniskii dambe barnaamijkeena kadib waxa hadlay wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dibadda Ridwaan Xuseen oo yiri waxaan diyaar u nahay wada hadal qaran oo ilaa heer go'itaan macnaha hadii ay noqoto in dhibaatadan xal kama dambaysaha laga gaaro oo dagaalkan la joojiyo oo colaadan la soo afjaro ee heer go'itaan ay xataa noo qaadanayso inaan aqbalayn ayaa hadalkooda ku jiray waxa uu sheegay in miiska wada hadalka dawladda uu u saaran yahay wax kasta iyo qodob kasta iyo wada kasta iyo qorshe kasta oo lagu soo afjarayo colaada waqooyiga dalka Itoobiya muddada sanadka iyo dheeraadka ee 13 bilood iyo waliba googa ah ka socotay waxa dawladdu marka inay waxoogaa lafteeda marka la fiiriyo qaabka uu u socdo inay u bislaatay dhibaatadana ay ka daashay oo hadda wixii ka dambeeyay aan dagaalkan sii socon karin labada dhinacna ay diyaar u yihiin in kasto dawladdu hadda marka la fiiriyo ayadoo ay gacan sareyso hadana waxa moodaa in dhankeeda ay bislaatay oo ay diyaar u tahay wada hadal qaran in uu dhaxmar dhinacyada isku hayo waqooyiga Itoobiya waata bal marka dul istaagto kelmadan ilaa heer go'itaan ma waxa jira qorshe daaha gadaashiisa ka socdo oo laga yaabo in deegaamo uga go'an Itoobiya mise sidii qodobka 39 ee dastuurkaba uu isaga jiray la isugu qancinaya oo ma santahay kulli horta lama ogo danta laga leeyahay labada dhinac marka aad fiiriso dhinac walba waxyaabo isaga uu doonayo in xaaladan ama dhibaatada Itoobiya lagu xaliyo ayaa jira laakiin lama xaqiijin karo inay dhab ka tahay iyo in kale waxa dhici karta inay ka tahay oo hadal afka baarkiisa oo diblomaasiyad oo ay doonayaan in ay saga khafiifiyaan culaysadan iyo maartay dagaalka TPLF ay doonayso dagaalka dawladda ay ku soo qaaday waxa weeye culayskan droneskan waxa inay saga fududeyso xabajinta ku dhawaaqayso dawladdan waxa laga yaabaa culayskii diblomaasiyad wali maalmihii u dambeeyay ay sheegaysay in uu si xoogeysanayo inay saga fududeynayso yaa laga yaabaa qodobkan 39 awal bal sheegay jiray meesha uu ku jiray laakiin hirgelintiisa ayaa meesha ka maqnayd maamulka soo meesha yimaadana muusan ka shaqeyninin mana u ahayn ajende iyo maaragtay waxyaabaha ugu horeeya ee uu hirgelinayay marka waa laga leexanayay lama yaqaan in la hirgelin doono iyo in kale in dawladdu ay hadii xaalku si adkaado oo TPLF shuruudaha ila timaado go'itaanaha inay u aqbali doonto mooji laakiin in ay aqbasho oo la kala tago iyada lafteeda muddo qaadanaysa oo wax fudud ma ahan marka dawladdu waxay tiri iyada wax kasta oo miiska wada hadalka la keeno diyaar baan u nahay waagi hore waxaan ogeyn in dhinacyada marka wada hadalada iyo waanwaanta iyo baaqyada loo diray in ay jeedinayeen dhinac walba uu la imanayay shuruudo gooni u ah waxaan ogeyn dadaaladii ay wadeen midowga Afrika iyo maartay diblomaasiyiin kale intaba inay fashil
iyo maartay hal bacad walis ay noqdeen kadib markii dhinac walba uu la yimaado shuruud ku adag ka kale dhankiisa inay ka fusho hada laakiin labada dhinac markii la fiiriyo TPLF-na wada hadalka hadda ay ku baqdo wax shuruudo meesan ku xiran dawladda dhankeedana waxay tiriba wax kasta oo miiska la keeno diyaar baan u nahay in waxa weeye aan qaadan waa tahay bal haddii intaynan heshiiska ka bixinaynaan u guuda gelin hadalka militariga ka soo baxay bal haddii aynu eegno lacala haddii TPLF iyo dawladda heshiiyaan qaar badan oo Soomaali ah oo Getachew Redan soo qabanayna lahaa isagoo dawladda dhexe ka socda hadduu u tago maxaa u maleynaa dhici doona Soomaali horta waxay dhahdaa wixii dhacay xalay dhali laga soo qaado mar hadduu heshiis dhaco afalaa ama salaf waa wixii hore ee dhacay waa laga xisaabtami karaa oo waxa weeye waa laga wada hadli karaa oo magdhow wixii dhacay waxa weeye soo gaaray dad gooni ah wixii dhul la kala qabsaday hal laysu celiyo ciidamada hal la kala qaado waxa weeye cid walba cid kale wixii ay ka tabanayso waxa weeye miiska soo saarto sida hal lagu xaliyo hal la is cafiyo waa caadi weey laakiin iyadoo oo la wada hadlay oo heshiis uu dhacay in la si daba raaco waa gudnimo Nelson Mandela wuxuu waan cafiyna laakiin ma ilaaweyn wixii maartay soo gaaray iyaga markii la fiiriyo South Africaanka isagoo muddo dheer xirnaa dhibaatooyinkii loo geystay wuxuu yiri waan cafiyna si macnaha waxaan loo soo afjaro oo anagana aan dawlad u noqono iyagana ay noo dhaafaan laakiin ma ilaaweyn wixii nagu dhacay oo wax la ilaaweyn su'aasha ugu dambeysay mawduucan ma laga yaabaa Soomaali amaanaysa inaan aragno TPLF-ta hadda qaar badan oo Soomaalida waliba kamida aad loo nacsiiyay waayay dad iyagoo amaanayo amaan oo dad jabsaday hadda la takeeda dadka qaar baa jira siyaasiyiin baa jirta aqoon-yahanaa jira dad badan oo ama iyaga ku yar dhow ama u arkaba nimankan in xataa tusaale wanaagsan laga qaadan karo yaa jira tusaale ahaan nimankan commitment-iga marka la fiiriyo nimankan go'aan qaadashadooda adaygooda sida ay u dagaalamayaan geesinimadooda dadaalka nimankan ay bixinayaan nafhurnimadooda qaabka ay u dagaalamayaan waxa weeye yar iyo weyn qaabka ay soo raaceen iyo midnimada ay muujiyeen oo ay dawlad dhan oo Itoobiya iyo waliba maca xulfadeedii ay ula dagaalameen sanadii gogo ay ula dagaalamayeen ee waliba dawladii ay mar waxa weeye qarka u fuleen in xaruntii wadanka inay la wareegaan dad badan ba waxay qabaan nimankan in xiriir lala yeesho oo bal horta wax laga barta nimankan qaabka ay wax u wadaan iyo geesinimadooda midnimada ay muujiyeen saan ognahay TPLF dadka Tigreega ma oo taageersanayn aad bay uga soo jeedaan sababtoo ah waxay ahayd kirbash iska dul saaraa muddo dheer bay ahayd marka iyaga dadka Tigreega laftikoodu ma aysan ku qanacsanayn TPLF in deegaanka ay sii maamusho oo iyagoo magacan wato oo noocan ah oo aan isbedel lagu sameeynin oo dad fresh ah oo dhalinyaro ah oo aqoon-yahano cusub aan la keenin ma rabin laakiin markii dagaalka uu dhacay TPLF ay qayliday dadkii ay dhibaato soo gaadhay ee loo abayeeli waayay Eritrea ay soo gashay Axmaara ay soo gashay oo waliba labadooda oo si gooni ah hadee aan cidna maartu abayeelaynin oo wix ay TPLF ama Tigreeg ku tilmaameen inuu gobolkaasi ka dhacayo wax u eg isirsifayn oo qoomiyad ama hal qoomiyad ka dhan ah oo caalamkii loo la tusiyay oo maartay xoog la siiyay oo hay'adihii xuquuqul insaanka caalamiga arintan ay ka hadleen taa waxay keentay marka Tigreegi xitaa kuwa siyaasiyiin ah oo madax hore soo noqday kuwa saraakiil ah oo TPLF-ta nidaamka ay wax wadaan ka soo horjeeda oo xitaa abi marka hore taageersan oo qaarkood xad doonayeen labada dhinac inay soo dhaweeyaan in markii dambe ay dhahaan hadiiba dhibkan uu dadkii Tigreega ahaa oo dhan ku dhacayo oo aan TPLF oo kaliya loo jeedin waan u madownaa وهذا الرجع هذا TDF تاني واحد هو جايبنا يبا رج مركه هذا TPLF تكسر وجه اسكو فكرة هين ويان طبعا ميدوبي هذه مركه وعدني كرتا إلا أركم معناها ضد هو هذا يجو أمانة أو حوي تاجرية هذا بدي ويجي هذا يجو تاجرية TPLF دجال كي وحوي مدة السعودية لبعض لنا حدا mid ba si ay ka tahay baniyadiisa kulay isaga isog ilaahay iyagu labada dhinac moodaa in hadda tanaasul iyo in wada hadal lagu xaliyo in ay doonayaan isla markaana ay u bislaadeen in miiska korkiisa ay isugu yimaadeen waata militariga muxuu ka yiri arintan xabad joojinta waa maasan tahay militariga dalka Itoobiya ayaa war ka soo saaray baaqi TPLF ahaa in xabad joojin degdeg ah ay ka hirgasho waqooyiga dalka Itoobiya isla markaana ciidamadan Tigreega ka soo baxaan deegaanada Axmaarada iyo Canfarta oo ahaa meelihii ugu badnaa ee dagaaladu ay ka dhacayeen militarigu waxa uu yiri TPLF ma aysan ka bixin waa lagu qasbay sanka iyagoo ka talon yaa xoog looga saaray gulufkii iyo weeraradii iyo culayskii aan saaray darteed ama aawadeed ayay uga baxeen oo waxa weeye qasab iyo sanduulo ayay uga baxeen ma jirto
wax iyaga rabitaankoodaha iyo qorshe kale oo iyaga waxa weeye ay uga baxeen ma jirto laakiin wax lagu qasbay oo xoog loo adeegsaday oo waxa weeye culays iyo cadaadis dhankana uga yimaada dadkii weeyaan sababta ay uga baxeen deegaanadan ama ay uga cararayaan deegaanadan axmaarada iyo canfarta ayay dhaheen militariga dalka Itoobiya oo warkooban ka soo saaray baaqa TPLF marka la fiiriyo maalmihii u dambeeyay ama tasbuucii u dambeeyay wixii dhacayay go'aankii ra'iisul wasaaraha uu qaatay diyaarado drones ah oo carada ka yar oo TPLF meel kasta oo ay galeenba waxa weeye ka fudhinayay ama ka saaray oo weerar ku qaadayay oo waliba de istaba joogaha markii la fiiriyo iyo ciidankii dhulka iyadana ugu daray oo huwan ahaa oo canfar iyo axmaara iyo maartay ciidanka militariga ka koobnaa intaas oo dhan la isku daray marka la fiiriyo TPLF kor iyo hoosba waxa la saaray cadaadis taas waxay qasabtay in magaalooyin waaweyn oo istiraatiiji ah iyo dhul badan oo de tuulooyin ah iyo wadooyin badan oo isku xireeyay magaalooyin muhiim ah intaba TPLF in ay waxa weeye ka carareen oo ay agahooda uga baxsadeen oo ay dawladdu gacanta ku dhigtay intaas oo dhan waxa moodaa marka la fiiriyo inuu ahaa cadaadis TPLF la saaray oo ku qasbay in ay waxa weeye ka baxaan dhulkan ama ay ka cararaan waata duqeymo yaa laga soo sheegaya gobolka Tigreega meel ka mid ah adoo soo koobay aad uma santahay waan soo koobaynaa in kasto TPLF dhankada ay ku baaqdo wada hadal iyo in xal siyaasadeed laga gaaro waqooyiga Itoobiya oo xabad joojin ay ku dhawaaqday haddana waxa garab socday duqeymo ay diyaaradaha droneska ay geysanayeen diyaaradahaasi meelaha ay duqeeyeen waxa kamid ah Maqale xarunta gobolka Tigreega waxa kamid ah Michow xarunta Tigreega iyadana aad uga masiifo gobolka Tigreega waa Koreem isla gobolka Tigreega weeye waxa kale oo iyadana jirta sida afayeenka TPLF ba uu sheegay magaalo lagu magacaabo Malazad oo ku taala xadka deegaanka Canfarta iyo Tigreega oo iyaduna diyaaradaha droneska ay duqeymo ka geysteen sida isagu uu sheegay bas ay dad shacab ah ama rayda la socdeen oo marayay halkaasi magaaladaasi ayay ciidamadan ayay diyaaradaha droneska ee dawladdu ay duqeeyeen sida uu sheegayna waa isaga sida uu sheegay ka soo xigay afkiisa waxa ku dhintay 30 ruux oo rayd ah buu yiri iyagu hadii ciidan xitaa laga dilo waa rayd ma sheegaan inta badan xarunta uu fadhiya ninkii ay depression hadii la duqeeyo waxay dhahan goobo shacab iyo guryo shacab ayaa la burburiyay iyo maartay xarumo ganacsi oo shacab u lahaa marka waa hadalada inta badan lagu yaqaano oo waxa weeye markii iyaga la duqeeyo ay dhahaan dad shacab ah ama goobo shacab ayaa la bartilmaameedsaday waxaana dhibaatada iyo saameynta ugu badan ay soo gaadhay dadka shacabka ee goobahaas ku sugnaa isaga suu leeyahay marka 30 ruux oo rayd ah oo bas la socday ay diyaaradahaas duqeeyeen halkaasna dadkaas way ku dhinteen laakiin dhanka dawladda wax ka soo baxay ma jiro waaya ugu dambeyntii Getachew Reda afayeenka TPLF uu hadlay muxuu yiri aan ku sii socon isaga waa uu hadlay oo waxa uu ka hadlay sababta ku qasabtay ama keentay hadda inay xabad joojin ay ku dhawaaqaan isla markaana ciidankooda ay ka soo saaraan deegaanadii markii horeba ay ku dagaalamayeen ee iyagu aysan lahayn deegaanka axmarada iyo deegaanka canfarta waxa ay sheegeen ama uu sheegay afayeenka TPLF cadaadis xagga dawladda uga yimaaday in uu ku qasbay in ay ka baxaan deegaanadan ama go'aankan qaraar ee hadda ay qaateen waa kaan ogeyn oo maalmo dhaweyto markii magaalooyinka ay ka baxayeen ee dawladuna ay lahayd magaalooyin badan TPLF ka saartay iyagu waxay dhaheen waa istiraatiijiyad dagaal iyo xeelad iyo qorshe annagu aan degnay oo ah mid dagaal dagaalkuna wuu socon doonaa mana joojin doono adhisoona waa qabsana waa iyagii lahaa iyagii saal ahaan ba haddana waxay ku baaqeen xabad joojin degdega ciidankoodina inay dhahaan degdeg uga soo baxa deegaanadan axmaarada iyo canfarta xadka deegaanadaasi ay la wadaagaan deegaanka Tigreega waa si degdeg ah ku timaada marka isaga wuxuu leeyahay diyaaradahan droneska ayaan si aan kala sooc lahayn weerar joogto ah noogu hayay cadaadiskii marka diyaaradahan ay nagu hayeen ayaa waxay keentay in aan ka baxno deegaanadan go'aanka qaraarna aan qaadano waxa kale uu yiri Eritrea iyo Ethiopia ciidamadoodu waxay isku urursanayaan xadka aan la wadaagno deegaankan Eritrea isku urursanayaan waxaan ka digaynaa buu marka in urursigoodaas iyo imaadkoodaas uu colaadan sii horiyo oo isagoo wax uu muuqdaa inuu la jeedo in urursigan xadka ka socda ee ciidamada Eritrea iyo kuwa Ethiopia ay doonayaan in mar kale ay dagaal ku qaadaan deegaanka Tigreega marka hadii ay dagaal ku qaadaan colaadda way socon doontaa xabad joojintan meesha
way ka bixi doontaa way buri doontaa marka wuxuu leeyahay waxaan ka digaynaa ciidamada is urursanaya ee xadka aan la wadaagno deegaanka Eritrea isku urursanaya isku dhafka ee labada dawlad ka kooban in ay colaadan ay sii horiyaan isla markaana baasin ay ku sii shidaan sidoo kale waxa uu yiri ama uu ku buriyay beesha caalamka waa inay cadaadis saartaa oo ay ku qancisaa dawladda iyo taageerayaasheeda in ay raadiyaan xal siyaasadeed oo lagu xalinayo colaada waqooyiga dalka Itoobiya ka socotay dadka qaar marka waxay leeyihiin isaga laftiisa wuxuu leeyahay ama dadka qaar baa ay u arkaanba TPLF go'aankan ay qaatay inuu yahay mid ay doonayaan calaacalkii ahaa dadkii Tigreega ahaa way baaba'ayaan oo malaayiin baa gaajo iyo macluul dhimanaysa bay doonayaan in wada loo furo oo waxa way gargaar la gaarsiyo iyaga laftiisa waxay dhahaan waxaan wada u fureynaa gargaarkan si dadka Tigreega u gaaro iyaga laftiisa waxa laga yaabaa in ay doonayaan in ay xoog ka yar nafisaan culaysadan saaran laakiin aysan diyaar u ahayn baa leeyahay wada hadal rasmi ah oo dhab ah marka waan ogaan doonaa labada dhinacba inkastoo hadda tanaasul ka muuqdo muddo bislaadeen oo dagaalka in la joojiyo ay doonayaan haddana wax xigi doona iyo midkood waxa way dhawaan lagu eedeyn doona in uu waxa weeye xabad joojintii wada hadalkii uu jabiyay waan ogaan doonaa waa tahay aad baad mahadsan tahay saaxiibka Ilka Caase daawadayaal intaas ayaan jeclahay inaan barnaamijkeena ku soo gabagabayno inta aynu barnaamijyadeena dambe ku kulmi doono waa Bahda Dhabka Hadal oo idinkaga sii tagaysa salaamu calaykum kula wacan wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta naga badan meel kastoo aad joogtaan iyo waliba si kastoo noola socotaan waxaynu si toos u aadaynaa magaalada Boosaaso gobolka Bari oo dagaal xoogan ay ka socdaan xilligan aynu idila hadlayno wararkii ugu dambeeyay magaalada Boosaaso laga helayo ayaa sheegaya in xeradii PSF ay weerareen ciidankii hogaamiyadani uu soo amray inay dagaal ku qaadaan gudaha magaalada Boosaaso gobolka Bari gacantana ku soo dhigaan ciidanka PSF oo uu hogaaminayo sargaalka lagu magacaabo Maxamuud Cabdullaahi Cusmaan Diyaano warar kala duwan oo xilligan aynu idila hadlayno ka helayna magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxay sheegayaan in xilli saacadu ay ahayd 8 subaxnimo in ciidanka Puntland ee hogaamiyadani uu soo dirsaday ay weerar toos ku soo qaadeen xeryaha ciidamada waxaana la soo warinayaa in mar walba marka ka dambaysa dagaalku uu sii xoogaysanayo iyadoo rasaasta noocyadeeda kala duwan xilliga la maqlayo dad kala duwan oo Boosaaso ku sugan oo suldaanka la hadlay waxay noo sheegeen in cabsi weyn ay ka qabaan in dagaalku uu sii daba dheeraado maadaama iminkan waxba la isku reeban doonyo ku xirnaa dekada ayaa bilaabay inay ka baxaan agagaarka airport iyo sidoo kale dekada dhawaqa hoobiye ayaana markaasi laga maqlayaa xaafadaha qaar iyadoo warar kala gidisan oo ka soo baxaya xiisada ay sheegayaan in dagaalku si rasmi ah u sii xoogaystay iminkana loo xuub siibtay la isku awood sheegto warar kala duwan oo suldaanka Tiifo helayo ayaa sheegaya in ciidanka PSF ay dhufaysidii ay sameysteen ee iminka gurmad ay heleen dhinaca qaybta bari ka yimid taasoo la soo warinayo in dadka deegaanku ay si weyn u difaacayaan ciidanka PSF 27 maalmood ka hor wareegta ka soo baxday xafiiska hogaamiyadani ayaa xilka looga qaaday Maxamuud Diyaano ciidanka PSF ninka haysto hogaamiya balse arrintaas waxa la sheegay inay noqotay hal bacaad lagu lisay kadib markii uu ka soo horjeestay xilka qaadistii lagu sameeyay Maxamuud Cabdullaahi Cusmaan Diyaano dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa barakac ka bilaabay gudaha magaalada waxaana la soo warinayaa in shacabku ay markaasi ka qaxeen goobaha uu dagaalku ka socdo xilligan mar walba marka ka dambaysa waxa la soo warinayaa in dagaalku uu sii xoogaysanayo khasaare xoog badan ayaana jiro labada dhinac soo kala gaaray sida ilaha deegaanku ay noo xaqiijiyeen dhinaca kale waxa la soo warinayaa in gurmad ciidanka Puntland u yimid uu markaasi sii xoogaysanayo oo baabuurta noocyadeeda kala duwan lagu soo daabulayo ciidamo kala duwan oo ciidanka Puntland ay dalbanayaan hogaamiyadani ayaa amar ku bixiyay sida wararku ay sheegayaan in markaasi weerar lagu qaado xarunta ciidamada oo dagaal toos laga bilaabo gudaha magaalada Boosaaso wararka xilligan naga soo gaaray waxay sheegayaan in rasaas markaasi xoogan xilligan ay socoto gudaha Boosaaso ka socota halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay ka taagneed xiisad kacsanaan rasaastan oo ah mid goosgoos markii hore ku bilaabatay balse gadaal ka xoogaysatay ayaa waxa markaasi isweydaarsanaya ciidamada ammaanka Puntland iyo ciidanka PSF siday noo xaqiijinayaan qaar ka mid ah wariyaasha ku sugan Boosaaso iyo dadka deegaanka oo si toos ah aynu wax ugu weydiino la xiriirnay
wararka ayaa intaas ku sii daraya in haatan dhawaqa xabadaha ay markaasi ka dhacayaan dhanka xaafadda Ridwaan gaar ahaan xerada ay degan yihiin ciidanka BSF ee Puntland ila wareedyo markaasi lagu kalsoon yahay ayaa suldaanka u sheegay xilligan in rasaastu ay bilaabato si xoog markaasi ay ku socoto dhalisana qasaare xoog badan kadib markii ciidamada Puntland ay ku dhawaadeen halka loo yaqaan Ridwaan oo ay degan yihiin ciidanka BSF waxaana la soo warinayaa in arrintaas walaac ay ku abuurtay dadka shacabka ah iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ku sugan magaalada Boosaaso xaaladda ayaa ah mid hadda aad u kacsan mana jiro wax hadal ka soo baxay labada dhinacba gaar ahaan saraakiisha ee markaasi dagaalka horkacaya isla markaana ku aadan rasaasta iyo dagaalka laga maqlayo gudaha magaalada Boosaaso wararku sida ay sheegayaan dadka shacabka waxa soo wajahay cabsi xoogan iyadoo xaafadaha qaar ay markaasi baraka xoog badan xilligan oo ka socdo ganacsigeena waa uu joogsaday sida xoguhu sheegayaan dhinaca kale waxa laga cabsi qabaa in dagaalku uu sii daba dheeraado xiisada ka tagan Boosaaso ayaa ka dhalatay xilka qaadistii uu Siciid Dani ku sameeyay agaasime Maxamuud Cabdullaahi Cusmaan oo markaasi ka hor yimid tallaabadii uu qaaday hogaamiye Dani waxaana kadib fashilmay wada hadallo waan iyo dhexdhexaadin laga dhaxwada labada dhinac waxa sidoo kale wararku ay sheegayaan in iminka ay xiisadu markaasi sii xoogaysanayso dadka deegaankuna waxay noo sheegayaan xilligan oo markaasi daqiiqda ka hor aynu la hadalnay in iminka ay ka barakaceen sida ugu badan xaafadaha ugu badan ee dagaaladu ay ka socdaan jawiga ayaana mar qura isbedelay mar walba marka ka dambaysana waxa laga cabsi qabaa in dagaalku sii xoogaysto oo deegaanada qaar uu markaasi ku fido ama xaafadaha qaar ku fido iyadoo la soo warinayay in ciidanka BSF maalmihii la soo dhaafay ay dhufiyeen si xoog badan ka qodanayeen aaga markaasi heestaan ay ku sugan yihiin hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo isagu iminka ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay waxa la soo warinayaa in amar uu ku bixiyay in markaasi la weeraro Boosaaso hubka aad maqlaysaan waxa markaasi isku adeegsanaya labada dhinac oo markaasi xilligan dagaalkii ugu cuslaa uu ku dhaxmarayo gudaha magaalada Boosaaso wararku waxay sheegayaan in saraakiisha hogaamiyadana uu soo diray ciidanka hogaaminaya amar lagu soo siiyay in ay markaasi gacanta ku soo dhigaan ciidanka Maxamuud Diyaano iyo sidoo kale dhammaan hubka markaasi yaala xaafadda Ridwaan ee ku taala xerada BSF taasoo la soo warinayo in amarkaas uu bixiyay hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo isugu markaasi la soo warinayo in magaalada Baydhabo uu qadka telefoonka kula hadlay isagoo ku sugan xubnaha markaasi dagaalka horkacaya saraakiisha ayaa la soo warinaya in amar buuxa ay ka heestaan inay gacanta ku soo dhigaan ciidanka BSF guud ahaan iyo sidoo kale hubka yaala xaafadda Ridwaan maalmihii la soo dhaafay waxa joogsaday waan ay wadeen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo sidoo kale culumaa diinka kuwaasoo markaasi doonayay in ay markaasi xal ka gaaraan xiisada Puntland balse waxa la soo warinayaa in ciidamo ka amar qaata Siciid Dani dagaalka iminka ay kula jiraan BSF iyadoo markaasi inta badan dadka shacabku ee degan xaafadda Ridwaan iyo xaafadaha kale Boosaaso ay isaga baxeen guriyihii ay deganayeen duqeyn xoog badan ayaana xilligan socota waxa la soo warinayaa in hubka noocyadiisa kala duwan la isku adeegsanayo iyadoo markaasi xogaa qaar ay sheegayaan in gacanta lagu dhigay ciidamo ka tirsan kuwa Puntland oo ciidanka BSF ay markaasi xareesteen inta la xaqiijiyay iminka warar iska soo daba dhacayo xilligan na soo gaarayo iyo fariimo kala duwan nooga imaanaya Boosaaso ayaa xaqiijinaya in 3 askari oo ka tirsan ciidanka ammaanka Puntland ay ku dhaawacmeen labana ay ku geeriyoodeen kuwaasoo markaasi ku dhaawacmay dagaalka ka socda xaafadda Ridwaan ee magaalada Boosaaso kadib markii ciidanka daraawiishta Puntland ay weerar ku qaadeen xerada ciidamada PSF ee magaalada Boosaaso dhawaqa hubka iyo sidoo kale rasaasta kala duwan la isweydaarsanaya xilligan labada dhinac ayaan isweydaarsanaya waxaana laga maqlayaa xaafadaha kala duwan ee Boosaaso sida ay sheegayaan dadka deegaanka fariimo iminka na soo gaaraya oo baraheena gaarkana loogu soo dirayo waxay sheegayaan in mar walba marka ka dambaysa walaac uu sii kordhayo dadka deegaankuna ay xilligan ka carareen guud ahaan ciidankuna laba aag ay ku kala jiraan dhinaca BSF waxa la soo warinayaa inay ka dhaawacmeen 2 askari oo ka tirsan ciidanka BSF iyadoo xogaa qaar ay sheegayaan in ciidanka Puntland 2 kamid ay ka geeriyoodeen 3na ay dhaawacmeen waxa la soo warinaya in iminka dhaawacii loo soo qaaday gudaha magaalada Garowe gobolka Nugaal sidaynu xogta ku helayno kuwaasoo laga soo qaaday magaalada Boosaaso gaar ahaan aaga markaasi xilligan dagaalku uu ka soconayo
dadka deegaanku waxay xilligan noo sheegayaan in cabsidu markaasi ay sii kordhaysa mar walba marka ka dambaysa xaaladuna haddii aan la kala dhexgelin waxay ku dambay doontaa qora caaradiis ayay leeyihiin dadka ku nool magaalada boosaaso ee gobolka bari kuwaas oo la socday waawaantii fashilantay odayaashu ay wadeen maalmihii lasoo dhaafay warar kala duwan oo xilligan la helaya ayaa sheegaya in waanwaantu markaasi uu hogaamiyadana uu kasoo horjeestay xalkii ay keeneen isimada puntland waxaana arintaas ay dhalisay nin walba inuu awood markaasi u adeegsaday ciidanka puntland iyo sidoo kale ciidanka BSF kale talisnimada hogaamiyaha puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa ay sababtay in uu dhagaha markaasi ka fureysto baaqyadii kala duwanaa ee isimada puntland sidoo kale wuxuu weerar qaawan oo maali cadeeya ku qaaday nabadgelyadii magaalada boosaaso isagoo barakicinaya dadkii shacabka ah hogaamiyaha puntland Saciid Cabdullaahi Dani haddaba wuxuu u kamid yahay murashaxiinta u tagan hogaanka Soomaaliya hogaanka dalka si loogu aamini karaa nin xaafadihii boosaaso iyo sidoo kale goboladii puntland nabad ka dhigi waayay iyo sidoo kale nin xilligan adeegsanaya qoray caaradiis oo dagaal culus markaasi ku qaadaya ciidanka markaasi BSF dagaalkan ayaa ah mid culus oo iminka ka socda gobolka bari gaar ahaan boosaaso xaafadaheeda qaar waxaana la soo tabinaya in ciidanka BSF iyo ciidanka puntland ay xilligan markaasi ay isku hor fadhiyaan hub daran dooriyana la isku adeegsanayo dagaalkan ayaa u dhaxeeya mar sida wararku ay sheegayaan ciidamada daraawiishta puntland iyo sidoo kale ciidamo hogaaminaya Diyaan waxay ku soo kordha wararkan daba ayaan ku soo gudbin doonaa isha ku haya halkan oo warar degdega iyo warbixin ayaan soo geli doonaa saacadaha iyo daqiiqadaha in soo aadan hadduu alla yiraahdo nabadgelyo